kulan wanaagsan dhageystayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada qaybta labaad ee sheekadii xiisaha iyo qaayaha badnayd ee dadka badan kaga oohisay Qays iyo Layla. waxay qaybtii koowaad inoo joogtay markii jaariyadii Marjaan ay u timid Qays oo ay u dhiibtay warqadii oo ayna ku tiri Layla waxay kaaga baqaysaa inaad u dhibaatooto jacaylkeeda. waxa kale oo ay ku tiri Layla warqada hablaha dunida jooga maxaan kaga duwanahay oo aad sidaan igu jeclaatay. warqada Layla waxay ugu calaacalaysaa Qays iyada oo ku leh adiga xaq u leh inaad nolosha ila wadaagtid. waxa anigu i guursaday nin aan naxariis lahayn oo indhaha igu guwa. waxaan nahay laba isnaag oo aw ku wada caweeya. markaas ayaa uu hanaaqay Qays oona u qaaday gabaygan soo socda. adduunyadan alawdee asar liiqa joogtee eeradu ku xidhatee laysku caroodhee lamaanahan iscaashaqay in looga caabsaday irkuba dhawaadahan daruuraha may culino badda caari mooyee ayn kala balloowa dayaxii adaawana hiddigii adeedsade laxiya caadgale caawadan habeenkii cidna maygu soo galay Laylana ma cawday wardi ma kula cawaysaa. Qays waxa ay ka guureen dhulkii murugada badnaa iyaga oo la doonayo in sidan dhaamo. waxa ay aadeen magaaladii sharafta badnayd ee Makka al-Mukarrama iyaga oo Kacbada loogu soo ducaynayo. sidaas oo ay tahayna Qays haddana kama uusan bogsan dareenkii Layla. maalin ayaa waxaa soo dulmaray shimbiro u jihaysan dhulkii Layla ku noolayd. markaas ayuu isagoo salaan u farayaa yiri sida tan: shimbiriyahu sareeyee soo duulaya samadee soohdimada dulmarayee siduu doono yeelee hadba meel siyaartaan daalayn sidaydee tii aan sugaayee qalbigayga siiyo salaan Layla iga gaadsii. Layla maxaa u dambeeyay maanta hablihii saaxiibada ahaayeen iyagoo ku leh Qays balantii ayaad kaga baxday aad dhigateen barigaad yaryaraydeen. Laylana waxay ku candoonaysaa inaanu Qays kaligiisa jacaylka u gaar ahayn ee Layliba dareemayso dhibaatada waayo haweenkuba waxay ka yimaadeen feertii nabiyullaahi aadam korkiisa nabadgelyo ha ahaatee. Laylana waxay leedahay dhulkuu joogo Qays baan aniguna jiraayo niyadiyo jidkii lala kala jecebto midba jiha fogaatuu waayaha la joogaa jarar baa iteedoo lagu jiray dhexdeenno jacayl xaasid baa jira dadka kala jeexayaayo midba jeelku oodo jawi kala fogaadiyo midba jiha ka tuuro jugta gaadhay beerka jinni igu abuurto caashaq lala jiboobo jinnin laygu eeganaya uma joogi karaaye dunidii ka jeesro layjeex dhulkiyo inaan iilka jiisado aan dhigo jilbaha ciid anigaa jeclaystee jidka aan lageysiyo jeexaad wareegtiyo arnigaad jibaaxdiyo gabadhkaad ku nooshahay. marka qori ku jeexeen anna jircooda haddaan aadan jidhidkiyo jaansaarka seydhaha loo jeexay xaawo la jiirsay nafteedana haween duni may joogeen dumar lama jaleexeen qurux looma jeeleen jacayl lama heeseen dhalinyaro isjamatiyo ma jireen lamaanuhu. Layla waxaa soo food saaray hammi iyo walaa waxay ka daashay Qays u yeelkiisa. markii ay deen weyday hadalhayntii Qays ayaa ninkeedii ku xanaaqay oo dherbaha xanuun badan kaga jeesiyay wajigeedii dayaxa u ekaa oo saddexdii dalaaqoodna u raaciyay. intay soo carartay ay gurigoodii ciirsi mooday ehelkeediina habeen iyo maalin wuu garaacay 30 maalmood afkeeda wax may saarin oo aan ka ahayn caano xal laga lisay oo hal mar kabato ilaa ka soo jeesteen indhihii buluuga ahaa aakhiro ilaa kuusha rabbaaniga ay soo marsatay. Qays waxa uu maqlay in Layla si loo garaacay markaas ayuu u dulqaadan waayay dhibka haysta saaxiibtiisa. markaas ayuu yiri sida tan: halkay kaa jabsheen anigana jidhkii jeexjeexmayo jiradaad qabtaa anna igu jirtaan la jiridhacaayo Layla jidhkii ani aan jeclaa jeedalkii la dhacay allow yaanu jirin jooginna adduunyada.
leyla waxay aaday allihii abuuray xaggiisa oo way xijaabatay oo dhimatay. markaas ayaa inta la maydhay la aasay qays noloshiisii halkii ay ku dambaysay. markii loo sheegay geerida qays, dunida way u dhammaatay rajadii uu ka lahaa oo isaga iyo walaashiis ay jecleed ee Hinda waxay ku dilooyeen qabrigii Leyla. qays waxa uu ku laabtay gurigii ay ku noolaan jirtay Leyla ee ay ku dhimatay si uu u daawado calaamadihii iyo raadadkii ay kaga tagtay dhulkaas. guryahaas oo madan waxaa sii yaala tiirarkii iyo meelihii ay xasan jirtay oo keliya. halkaas ayuu ku wareegi jiray iyo hareeraheeda. intaa wixii ka dambeeyay qays adduunyada aad u kala fogaatay ayaa afka ku soo kala qaaday. markaas ayuu yidhi isaga oo Leyla iilka fariin ugu diraya sida tan: Leyla adduunyadu waa boos gooyo labadii istoorata lagu kala fogeeyaa labi weeye dheero qof ballaan ka haysto lulayaan dabayluhu dadku laba liilaha isku laafayooba subax kala lugeeyo lumiyaan dabayluhu ruux la'aanta leedi waayey maankii leylkii istaago illa lama degaaniyo dhibka lala ogeyno iibtuu diiday badanaa Leyla ay abuurto markii lagu bilaabaa looxii maxfuudkana lagu qoray wadkaage. Leyla dhambaalkii waa uu gaadhay iyadoo ay sidoo kale saxansaxada roobka subax mayga joogda'ayo. markaas ayay u soo jawaabtay qays iyadoo ku nool caalamka qarsoon kana waraysanaysa xaaladiisii iyo halkuu ku nool yahay. waxayna tiri sida tan: ciilkaan dugsadaayo dalalowsiin dheerba iyo kaabeyeeye dunida ma joogtaa doogiyo tigaadiyo daruuraha hilaaciyo darax ooga joogiyo u daawataa qurux dalkasow hablihii kacay sacabkiyo durbaanada uma daba garaaceen diiwaanka maad gelin kollay kii i dulmiyey dabo looma helaye samir iyo dulqaad badi duna daayin maahee. qays waxa uu dareemay dabayshii siday jawaabkii Leyla xilli barqa ah oo gugucu uranayo daruuruhu ay sidaan biyaha. markaas ayuu isaguna noloshuu ku jiro iyo cidlooyinka uu ku nool yahay u tawinaya kana codsanaya maroon inay dunida ku soo laabato, taasi oo aan suurtagal ahayn ha yeeshee murugadu ka keentay. ka dheeri dadkii i dhalay dhulkii ka fogaadayo cidlaan dhalandhoolaya dhirtu ila hadee dhawaaqa dabaylahan dhexdooda dheeldheeliya ugaadhbaadaan dhowraya dugaagaan u dhowaanaya Leyla ii dhagaduglow ka fayd doobada indhaha dadkuba waa dhimanaya mar uun dhugo caalamkii dushiisa dhaawacahay dhambaal baan ku wadaa dhowaan waan daynayayo anduun dhibaatadeediyo qabriga dhinac ii banay labanna aan wada dhigne. qof dhintay dunida dib uguma soo laabto. qaysna waxa uu silcayaa Leyla oo aan markii caalamka joogtayba ku adkayd inuu helo. Leyla dunida waxay ku howl yaraysatay wax aanay u soo jawaabtay sida tan iyadoo u soo hambalyeynaysa: hoos baan jiraa ciilkaan hurdaa howlaha adduun uma tag hayee hagardaamanki iyo hoohalkii ina kala xiraa rooga igu rido ka haajiray ifteen hambaliyo salaam hoo iga gudo. qays intaa wixii ka dambeeyey waxaa soo wajahday kurbo iyo xanuun habtaaf ah. maalmihii noloshiisa u dambeeyey waxa uu sheegay walaashiisa Hinda inaanay adduunkan dib ugu arkayn. iyaduna waxay ogeysiisay ilma adeeradii iyo walaaladii. markaas ayaa laga baadhay buuraha dushooda iyo togaga. meesha waxay ku arkeen islaanta ah oo degan. qays ayay weydiiyeen, markaasay ugu jawaab celisay: maalin walba cunto ayaan dhirta ugu geen jiray. shalay markii aan damcay inaan halkii unnada u dhigo waxaan ku soo arkay unnadii shalay oo taala. dib ayaan isaga soo laabtay, mar dambena ma arag. hore ayay socodkoodii u sii wateen ilaa ay gaadheen tog dhex taagan. waxaanay arkeen meydkiisii, way soo qaadeen ilaa ay gurihii dib ugu soo laabteen. qays iyo Leyla waxay qabriga u kala horeeyeen oo keliya 24 habeen. dadkii oo idil waxay maqleen dhimashadii qays. ma jirto mid ooyaya
ama tu oyda oo loo oohin badan yahay maalintuu qays geeriyooday kumaysan kulmin qays iyo leyla nolol raaxo leh adduunka korkiisa oo aan ka ahayn caalamkii waarayay ee aakhira mooye qays waxaa lagu aasay leyla dhinaceeda midig waxa uuna la socday hurdadiisii ugu dambaysay saaxiibtiisii leyla waxa uuna isku qabtay labadiisii indhood kuwaasoo ay uga ooyeen buur kasta iyo tog kasta oo dunida ku yaala leyla ma oga in qays adduunkii ka soo tagay iyo caalamkii duufaanta badnaa iyo dhibaatadii iyo weliba bulshadii canaanta kululayd iyagoo doonaysa inay u qalbi qaboojiso si uu u farxo oo moodaysa inuu ifkii joogo ayaa waxay u soo tixid dhambaalkan maalmahan degdegayay meeraya dunide noolaha malaalkiyo midba meel ka tuurtaa aniguna ii maleegtee muxibbada kalgacalba mugdiyaal i geliso mawlacan la jiiftaa midabkii adduunyada naftu way u muhato mar inaan ku laabtaa maankaygu doone qaysow ma joogtaa qays hurdo ayaa laga kiciyey in badan oo dunida joogay dhabanna muusan dhigin si kastaba oo ahaataba waa in uu leyla wax ka dhaadhiya oo u caddeeya inuu u dhow yahay intii hore oo ay wada joogeen daartii barwaaqada iyo nasashada sida tan ayaana uu yidhi dunidii ma joogo daris baynu nahayo adigaan daraadda noloshii u daayo ugu doortay aakhiro markii aad i daysee durugtee xayaankee ina kalaha dabooshe isku dayrtay ciidiyo ciilkiyo daluumaha anasoo umaanan degin dooxooyinka bari aydhiyeeday u qaateen diihaanka caashaqu dabadeed inuu helin diiwaanka caashaqa iyuu qoray dadweynaha leyla iyo qays buugaag jacayl ah ayaa lagu qoray hawba caansanaadee buugii yemen ka soo baxay ee aan ka soo turjunnay qisadan ee la yidhaahdo marka ciwaankiisa la turjumo jacaylkii waaray leylana waxay tilmaamaysaa in sheekadoodii caalamku ku faaftay oo lagu maamaacdo xitaa dadka isjecel lambaalada isugu qoraan waxayna tiri iyada oo saaxiibkeed la hadlaysa qaysow adduunyadu qayrnigaynu joognay weli laga qisoodaa laysugu qoraa qoraxdii timaadaba qalbiyaa laysjecelbaa laysku qushuucaa qofba waa nafeedoon qurux waa adduunyada nolol laysku qaybsado markii muddo la joogay ayaa waxaa soo daahiray mucjiso aan hore loo arag oo qays iyo leyla labadoodii qabre waxaa ka soo baxay laba geed oo intay kor u baxeen fooda isgalay oo isku marmay oo waxaabad moodaa laba qof oo xab is siinaya waa maansadii abwaan faarax cabdi muran jacayl waa dhibaato dhacdadiisii koowaad dhulkuu qays ku dhabee ugu dhintay leylu weli dhoobaan yaho kama uusan dheeraan dhiilaabi maayee qabriguu dhambaaliyo intuu geliyey dhuumaha biyo ka soo dhexmariyo dhilku beerka iilko dhaqso ugu koriyayo dherarkooda laamaha dhudhuban iyo ninkii joogiyo markuu sare u dhaafshuu kalgacayl ku dhaaliyaayo isku soo dhoweeyo isku maray dhexdoodo dhaqankii weeye dhagar labadoodiiba cilmi kaga dhammeeyo dhoobada berbera iyo batalaale dhigayo dadku dheehda yimaado wadnayaal isku dhiga oo dhibadiyo naftooda ka yaray dhiiggii waa hagaag halkaana waxaan ku soo gabagabayn doonaa qisadii dheerayd ee aan idiin soo wadnay ee qays iyo leyla qisadan inta ay socotay waxaa idin soo jeedinayay anigoo cabdiqaadir cabuukara taan qisada lamid aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يا ليلى ليلى لدواي لعنت
kula wanaagsan dhagaystayaal meel walba oo aad joogtaan kuna soo dhawaada qaybta labaad ee sheekadii xiisaha iyo qaayaha badnayd ee dadka